waxa ay soo dhaweynayaan gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ahna duqa magaalada Axmed Mayre Makaraan oo muddooyinkii ugu dambeeyay howlgallo ugu maqnaa qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe. odayaal waxgarad haween maamulka gobolka kan degmada ayaa ka qayb galay soo dhaweynta. qaar ka mid ah dadkii soo dhaweeyay ayaa ka hadlay goobta. mudane gudoomiye bulshadii laf dhabarka ahayd aad ku dhaaranaysay waata maanta hortaada joogto waa ilaahay mahadiis haddii adoo nabade ruunka ku soo noqotay waa la soconay tilaabtaad qaadaysay geedkaad ku hergelaysay gurigaad ku baryaysay weerarkii aad ku jirtay meeshaan joognan kagala soconay caway iyo maalinna wardigaan kugu soo kaalmeeyayni farcadayna lama soo koobi karo gudoomiyahayna sharafka badan oo noogu maqnay shaqo qaran hawsha oo soo qabtana aan ku faraxsanahay asagoo maanta ku soo gadooma gurigaagi ku soo dhawow adoo nabada aad iyo aadaan ugu faraxsanahay maalmahan oo dhan waxaad ku maqneed howlgalka dib u xoreynta dawladda Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe gudoomiye waa kaaga mahadcelinaynaa adoo ka shaqeynaya dib u heshiisiinta iyo maxay dib u xoreynta isku waday waa kaaga mahadcelinaynaa anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan rajaynaynaa dib u xoreynta in la sii dhameystiri doono waxaan rajaynaynaa gobolkeen inuu noqdo gobol horumaray waxaan rajaynaynaa maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo degmada waxay u diyaarsan yihiin sidaad arkaysaanbo in horumarinta deegaanadooda iyadoo aan kala maqnayn guul iyo gobonimo aan leeyahay. gudoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Muqtaar Cismaan Baari ayaa qudhiisa ka yiri goobta. saaki 2 saac ilaa hadda waxay u taagnaayeen inay ku soo dhaweeyaan waxay kaaga mahadcelinayeen ilaahay ka soo koob muddada dheer ee aad halganka aad ku jirtay waxaa shaqaysatay ajir waxaa shaqaysatay sharaf ilaahay ka abaal mariyo waxay ahayd maanta inaan sheeko dheer aan ku galno qof silo dhinti aan ku sheegno waxaan noogu dambeeyay gudoomiyaha xaafadda Kulmis Allah u naxariisto Yaxya Xasan Sheekh qabri ilaahay khayr ha ku siiyo waana ka tactiigayni marka waxaan leenahay asigana ilaahay waa xubin weyn oo naga baxday waaye run ahaantii magaalada Jowhar ee ay u kala socneen waliba haddana hadduu ilaahay yiraahdo waxaan jecelnahay in aan dhammaanteen aan wada ducooyno. Axmed Mayre Makaraan gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka mahadceliyay soo dhaweyntii ay u sameeyeen bulshada reer Jowhar. mahad iskale si nabada nagu keena maanta caasimadda gobolka Shabeellaha Dhexe iyo midda state-kaba oo dib ma ugu soo celiyay caasimadda inaan ku soo laaban ilaahay noo qadiraa ku mahad iskale ku mahadsan. aad iyo aad muddo u badan ayaan ka maqnayn anagoo ku maqnayn howlo shaqo waqti dheer ayaan maartay magaalada anagoo ka maqnaa waxaan maleeyahay inaan hal habeenimid haddana aan shaqo u baxnay shaqada aan u baxnayna ilaahay xamdigiis iyo ilaahay fadligiis meel fiican ay martay gobolka Shabeellaha Dhexe labada dhinac laga heestay hadda hal dhinac waxa moodaa inay dhibkii iyo culayska naga heesto oo naga soo fuqay laakiin dhinac kale ayaa noo dhiman wali ma wada xuruubin ilaahay idinkiis waana wada xuruubin doonaa. kamaad celin kadib waxa uu bulshada Jowhar ugu baaqay in ay garab siiyaan ciidamada ammaanka si loo cirib tiro al-shabaab. war ninka bustoolada ridaa fiiri hadday intaan qof ka dabadido xabada inta ka dhamaado marka dambe oo la soo qabaha hal nin hadii sidaas lagu sameeyay maalinta markii meesnin bustoolaha saacad ilaahu oo 10 iyo 20 dil haduu bustoolada ugu jirta xatay halaha kale inta soo qabaa intaasba inuu dilo ma gaarsiin karo balkii hadii laga dabadido dhagxaan la qaato asaaba meel u gal raadsaayb inuu bustoolada iska badhaaf marka waxaan rabnaa inaan hoos u jeesano anaan ka tanasulaan rabnaa inaan iska dhicino nimanka dadka dhibaatada ka maleegaya magaalada dhexdeeda inaan iska celinaa rabnaa cid kasta cid ku lug leh ee la xiriirtay telefoon kala shaqeyso oo waxay dhex maraan oo ogtiina waa soo sheegaysid tilaabo sharci ah laga qaada cid looga heebaysaa ma jirto noloshayna iyo inaan sharaf ku noolaano
xayaatada ilaahay oo noo ogolaaday inaan si xorriyada ugu noolaano si xorriyadana aan u cibaadaysan si xorriyadana aan magaalada meesha rabno ku marno si xorriyadana qofkaan rabno aan u tigi karno cidda noo diidan waxa ay noogu diidanta hadday ay qora ku tashayso inaan qoraga la qaadano hadday busoolad ku tashaysana busoolada la qaadano meelna aanan uga helinoon meel iska saarnaan rabnaa maxamed yaasiin maadi maxamed qalfa Universal TV magaalada Jowhar